3 sano ka hor waxaa dhacday in sidii dhalinyaro badan iyo dad badan ay aaminsan yihiin aan noloshayda rabi inaan guuleysto dhalinyaro ahaa waa soo baxay fresh ahaa laakiin maskaxdayda problemku wuxuu ahaa inaan guuleysto problemku wuxuu ahaa wadada aan guusha u maraayay aan ku rabay inaan ku hanto aan noloshayda aan ku hormaro sidii bulshadeena waxay digsan tahay xeerar ay leeyihiin jiro ina guuleysato for example amal waxa u soo maray ina guuleysto iskuulka ka baxay jaamacada ka baxay aywas waxa rabay ina maxay shaqo helo shaqo marka helo waxa rabay ina guri yeesho guri marka yeesho waxa rabay ina awlaad dhalo ina maxay baawur heesto ina lacag badan leeyahay ina mujtamaca magac ku leeyahay whatever wixii mi suurta gali waayeen marka jaamacada ka baxay shaqo la'aan ay ugu dhacdo ya إيكو سهل مرك واحد كالي شغل أنت محاوى أنت فير نك وأسوعن ويسنلاش سأسوعنيس واحد سوماهن إنا وضدنا وضمرنا تدكو حدويان شقهل هي جورسو ولا عدادين ويا هي وهكنا جدك وسارنا وحي أكينو وحا يقول علي نيجب ماشي وحا كقاد ورين واحد ورو وضدي واتنا لو وضمروا دتك نودي جيني وكسعنا وان سمينو ناي أوح قارن نك أنت كبح وحي واسمين وين waxaa gaaray at my lowest point noloshayda ma aqaano qof kasta wuxuu dhahaa kan sameey guurso okay jaamacad waa dhameysay iska guurso iska sameeyso shaqo ma waxay dhan ay kurin waxa sameeyaa way and then ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa sameeyaa u dhawaada waxa period kasta waxay ahayd ilaahay inuu u dhawaado ilaahay tuso ina wax badan aqriyo waxa marka buugaagta aqrinay ogaaday inay fikradeyda bedeshay fikradeydu ku qufulneed in guusha ay tahay horumarka ay tahay ina wax external radio guusha waxa bursanay inay aheenay wax aan soo jiidanay inay tahay guusha inay aheen gudaha banaanka gudahayga ay tahay waxa kale fikradeyda bedelmatay ina dadka wax ka suguno ani wax soo saaro ya marka intaas dhan ogaaday waxa ii bilaabmay wado cusub ay bilaamata qof wax aqriyaa noqday qof waxa noqday oo meel ka soo baxo dibki intaas mu ku harin marka aniga ka baxay aniga wax ka suubsaday shaqadii aniga sameystay noloshayda gal waxa arkay dhalinyaro badan jidkayga marayso ayakii sidii loo cadaadinayo shaqo waa inay heshiin wax waa inay gaartiin dhibaatada heesato qaar ii dhow tahriibayaan qaar ii dhow depression hay qaar ii dhow maxay ahayd inay isdilaan maxay ku fakarayaan borobalemkii shalay ani heestay wada heesto ayaka dhan inay wax noqdaan rabaan aqoonin wadada wax ku noqon laayeen meesha ani taagna ay taagan markaas waxa kaalay it's not over ma dhamaanin waxaan ilaa maxay ahayd qof kasta dhalinyaro kasta oo maxay ahayd guul rabto ee ogaatay inay guusha ahaan waxaan qaldan oo nolol sameeyay ma ahan ina caan noqono ma ahan ina magac yeelano ma ahan shaqadeena guusha is anaka ina wax noqon gudeena markaas waxa igu dhalatay buugaan ina qoro buugaan soo saaro buugaan wuxuu ka kooban yahay laba qaybood marka kamera dhal noloshaada u sameeyay waxa ku saleeyay anoo og buugaagta hadda jiro waxay u kala baxaan buugaag dhiirigelina buugaag caafimaad buugaag maxay ahayd oo self development buugaan wuxuu isku kaashanayaa caafimaadkii developmentigi iyo guushi qofka uu ku hanan lahaa asoo caafimaadkiisa internally isdar yeelayo kamera dhal noloshaada laba qayb marka u kala baxaa kamera dhalin shakhsiyeed iyo kamera dhalin shaqeed waxa hormaray markasta kamera dhalin shakhsiyeed itis shakhsiyadaada mid wax ku geenayso wuxuu ku hormarnayaa jabtaradaas ugu horeeyo ina maskax adag dhisatid waxa ku noolnahay bee'a adag bee'a oo u sameysneen dhalinyaradeena wadankii dagaal ka socdo dhibaa ka socdo dhibkaas dagaalkaas caqabadaas waxaas wax naga soo riixi kar waxa waa ina mentalitygeena iyo mindsetkeena ka shaqeeyno ina maskaxdeena oo u abuurno programkii lagu shubo yaraanteena ka bixino ku soo shubno programin cusub buug wuxuu ku barayaa maskax fresh soo noqon lahaydeen oo buuganin bara fresh mentality noloshaada u sameeysan lahaydeen mid kale oo qaybta labaad waxa waa kamir dhalin shakhsiyeed okay mentalitygaada waa ka shaqeysay waa ogaatay wixii muhiim ku ah shakhsiyadaada imaanay marka shakhsiyada marka imaado ma ahan marka inaad dadka wada raacid shaqadii shakhsiyadu waa fahamna shaqadii qof kasta wuxuu rabaa inuu dadka wixii qabanaya qabto shakhsiyadu wuxuu buugan ku barayaa
in maxay ahayd shaqadii adhee in adiga talentigaada awoodaada hibada ilaahay ku siiyo aa baratid haddaa aqoonina asaa ku baraayo asaa ku maxay ahayd ku tusaay hibooyin aad samaysan kartid hadda aad baran kartid gacanta aad ka qaban kartid oo qofkaas waxaasaa loo dhaafay oo loogu tagi karo intaas marka buugga hadda ugu baxo waxaa rabaa hal fariin oo yar inaan ku darsado waxaa waa fariinteeda asxaabay dhalinyaro haddaa tihiin wax aqriya aqriska anuu isoo badbaadiyey haddana waa ku jiraa wallaahi aqriska waa magic aqriya 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 ya midda labaad waxaa waaye noloshiina ka mira dhaliya hadda ma ahan wax oo waa yartihiin oo 15 jir meesha hadduu fadhiyo 50 jir 40 jir 70 wax oo nolosha noo soconayo waa noloshaada hadda noolow lesbaron waa motivation oo macalin ii ah oo aad ii motivate garay wuxuu soo qaadanaa scenario yar scenarios waxaa rabaa inaan la wadaago waxaa imagine garaysiin qof kasta oo naga mid ah inuu sariirtiisa dhimashada uu jiifo oo maantay sakaraatu moodkii u taagan tahay sakaraatu moodkii ku taagan sariirtaada jiifta marka nafti kaasii baxay ku jirtid dileema yara la galaa dileemadii waxa ku hor imaaday ashbaaxdire aqraad badan geesaha imaadeen subhanallah inta la iga imaaday ya inta la iga imaaday indhaha kala furtire aqraadka waxa waay riyooyinkii hamigaadii skillskii maxay ahayd awoodihii waxyaalaha inta nooleed ku fikri jirtay buugaagtii sheekooyinkii la rabay inaa adduunka inta joogtay dadku u soo saartid ka jiifatay ayakoo ku xanaaqsan oo ray aqraad ay soo ku fiiraan ay ku dhaayaan adduunkii waxa waaye ilaahay aduuna ka siiyay adiga hebel qof kasta aduu ilaahayna ka siiyay maanta adiga kula dhimanayna gudka kula galayna marka su'aasha waxa waaye marka dhimanaysiin aan hadaa dhimanaysiin buu meeqo maxay ahayd sheeko meeqa buug kula dhiman karta hadaa wax ka qaban imagine Yeah.